بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo bisha April ay tahay 19 2019 waxaan halkan rabaa inaan ku duubo ogeysiis iyo bushaaro. waxaan horeysiinayaa bushaarada ardayda dhibaatadu ka haysatay jaamacadihii ay Soomaaliya ka soo baxeen oo aan laga aqoonsanayn dalka Turkiga gaar ahaan hay'adda York ee tacliinta sare qaabilsan oo jaamacadaha Turkiga ka dhiganaya master iyo PhD. ardaydaas soo siin loo soconay ilaa sanadkii hore dhibaato ka haysatay sidii ay jaamacadahooda u sii wadan lahaayeen oo hadda ka horna aynu gudbinay liiska 40 arday oo dhibaatadaas si gaar ah u qabsatay. waxa bushaara inoo ah in shirar badan kadib iyo warqado badan oo aan isdhaafsanay hay'adda York inay ugu dambeyntii doraad kulankii wasiir dawladda waxbarashada iyo hay'adda York dhex maray oo madaxa hay'adda York soo aqbalay ardayda hadda dhigata jaamacadaha ku jira Turkiga ee master iyo PhD da oo jaamacadahooda Soomaaliya aan York aqoonsanayn inay dhammaysan karaan oo loo ogolaaday inay dhammaystaan waxbarashada. ardaydaas oo saynu ogeyn qaarkood laga yaabo inay PhD di buug qorayeen, qaarkood master ta qorayeen. waxa bushaaro inoo ah oo ardayda gaar ahaan u ah oo ardayda Soomaaliyeed guud ahaan u ah in hay'adda York ay ogolaatay ardaydaas inay daraasadooda dhamaystaan oo aan waxba laga joojin. ogeysiisku marka waxa weeye dhammaan ardayda intii soo gudbisay waa soo gudbisay magacyadooda. inta aan soo gudbin waxaan ka codsanaynaa waxaan looga baahan yahay safaaradda inaan gudbino liis dhammaystiran si arday walba jaamacadda uu dhigto warqad ay York ugu soo qorto. waxaan markaa ka codsanaynaa ardayda dhammaan inay isgaarsiiyaan ardayda jaamacadahooda aan laga aqoonsanayn Soomaaliya ee Turkiga ka dhigta master iyo PhD ama waxbarashada qaarkood ha laga joojiyo ama yaan laga joojin xataa kuwa aan wali laga joojin jaamacaduhu way ka joojin doonaan. marka waxaan ka codsanaynaa arday walba oo noocaas ah waa inuu bilaa ugu dambeyn maalinta Isniinta ah uu soo gudbiyo magaciisa jaamacadda u dhigto ID numberkiisa oo u soo gudbiyo xafiiska Ummaset ee magaalada Ankara ku yaala. Ummasetna anaga ay noo soo gudbinaysaa waxay u soo diraysaa Sheekh Cabdi Casiis oo qaabilsan waxbarashada iyo dhaqanka. waad mahadsantihiin.